halkee ayuu ka yimid magaca Xamarweyne dadka taariikhyahanka waxay sheegaan in magacu markiisii hore ahaa Xamarkii Duqoobay qarnigii 16aad Xamarweyne waxay ahayd dhul xeebeed bannaan oo ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqato ah iyo dad kalluumaysato ah oo kaliya waxayna ka soo kala jeedeen wadamo kala duwan oo Carbeed Xamarweyne waa halka ugu qadiimisan koonfurta iyadoo leh taariikh soo jireena oo ayna ka soo taliyeen boqortooyooyin kala duwan rugna waxay u ahayd ganacsigii bariga Afrika qarnigii 16aad ilaa iyo qarnigii 19aad degmada Xamarweyne waxay dhacdaa dhanka xeebta badweynta Hindiya dhererka xeebta waxa lagu qiyaasaa 1.2 kiiloomitir dhanka waqooyi waxa ka xiga degmada Wardhiigley iyo Baandheere dhanka bariga waxa ka xiga degmada Shangani dhanka koonfureedna waxa kaga beegan badweynta Hindiya halka dhinaca galbeed ay ka saaran tahay Xamar Jajab halkan iminkaan taaganay waa Xamarweyne dhexdeedii waxa weeyaan ciid bay u dabaal degayaan dadkani istaaqfiru baa la yiraahdaa bay nagu dhaadeen si dadka deegaanka loo sheegeen waxa weeyaan sanadkii mar bay u dabaal degaan marka maanta waan ku soo beeganay halkan waa masjid jaamici imika masjid jaamici waa kan naga sareeya ciidan baan ku soo beeganay meeshan oo dhan waxa weeye dhalinyaro dad waaweyn dad yar yar dhamaantood way dabaal degayaan maanta waxaan iskugu soo baxnay waxa waaye istaaqfuro waa lahaa istaaqfuro waxa waa istaaqfuro loogu duceynayo wadanka oo dhan in Ilaahay roob keeno barwaaqo Ilaahay keeno dhibka Ilaahay Soomaali ka saaro sanad kasta la qabtaa maahan maanta kaliya qabiilada dhan oo reer Banaadir isku soo baxo qabiil kasta siday u kala horeeyaan ay u kala istaagaan badhawo waa soo baxay reefaq ayaa soo baxay reefaqay waa culimada lama taabtaan ah waxa soo baxday kaashata soo baxday moorsha soo baxday bandhago waa soo baxay waxa soo baxay waxaan ku leeyahay kulli reer Banaadir oo dhan shaanshiya soo baxday dhabarweyna soo baxay kulligood mid haray maanta ma jirin reer Banaadir si u dhan yihiin oo dhan way soo wada bixin ma sha Allah waxaan leeyahay ducada Allah noo aqbalo maanta halkan baynu ku dalxiisi doonaa la socod wanaagsan baa idin leenahay eeriyadana oo dhan magacyadooda waa naloo sheegay bal meel kasta insha Allah waad arki doontaa
badda baar min shubu baa la odhan jiray buu nagu yidhi nin meesha joogay baar bay ahayd meeshani baddiina waa taa fiyugi waa halkan waa kuwa ciyaalkeeda ka kalluumaysanayo waxa weeyaan halkan dhismahan uu duunsan yahay laakiin koley dadkii halkan ku noolaan jiray ama halkan joogi jiray ama berigii yaraayee soo gaadhay meeshani macno badan bay u samaynaysaa oo waxa weeye xasuustii waayo ayay ku celinaysaa halkan iminkaan soo gaadhnay waa Somali Commercial Bank waa kaas wuxuu ahaa bangigii ugu weynaa Soomaaliya Somali Commercial Bank waa ku taala dhis baa lagu wada laakiin kulli fooq weyn buu ahaa barigii hore taa arkaysaan waxa weeyaan fooq aad iyo aad u weyn duwoy adaa ku dhuumatay ma ii daami kartaa waxaan ku suganahay Xamarweyne waxa weeyaan waan soo dhameynay imika meelo fara badan baan soo marnay waxa weeyaan waan ku soo wareegnay lug baan ku soo dhameynay hadda saacad waxay ku sii dhowdahay 5 iyo barkii galabnimo waxa weeyaan imika muuqaalka halkan ma ku soo xidhi doonaa laakiin waxaan rajaynayaa in muuqaalkan wax fara badan ka barateen sababtoo ah waxa weeyaan meelo fara badan oo Xamarweyne ka mid ah ayaanu soo marnay oo aan idin soo kala barnay muuqaalkan hadduu soo gaadho like subscribe share kana mid noqo asxaabta ku xiran qaysar halkan imika bajaaj baan ka fuuli doonaa kadibna waxaan ku noqon doonaa halkan magaalada ka deganayn muuqaalo fara badan oo idin soo wadnaa oo waxa weeye aad iyo aad u qurux badan oo Muqdisho ku saabsan marka isha ku hayaan idin leenahay channel naadinta on darfuule dakiga lisaarine alle gudaqe duoy dare kede manadinta on darfuule dakiga lisaarine alle